si runtii aad iyo aad u qiimi badan uga cudur daaranaynaa marka hore daahitaanka yara ee aan soo daahnay meesha oo ciriiri ah gabdhaha bannaanka taagan uguma aanan talagelin runtii inaad taagnaataan laakiin qadarkaa dhacay arrinkana wuxuu isoo xusuusinayaa hoolkii sahal iyo istaadiyo koonis xamar sanadkii hore barnaamijkii cafi walaalkaa aad baan runtii u dareemayaa sida aad u jeceshihiin inaad aragtiin culimadiinii inaad dhegaysataan kalimaadkoodii wacyigelinta ilaahay waxaan ka baryayaa qalbigiina Allah idin nadiifiyo xubnihiinana ilaahay waxaan ka barya xoog ha idin yeelo aad ku taagnaataan oo aad ku sabirtaan sabirna Allah idinku irsaaqo walaalaha taagan bannaanka iyo cudurdaara culimada waanu jeclaan meel qurux badan oo qabow inaan idin fariisino laakiin duruufaha jira darteed ayaanan kulamada noocaana loo dhigin intan aad arkaysid Axmed ayaa jooga Kilimanjaro oo maaragtay aad iyo aad isu xil saaray cid intanoo dad ah isu keeni kartaa ma jirto wallahi maanta Nairobi laakiin xiniyihiisii xooggiisu isticmaalay Allah barakeeya walaalayaal kelmad baan rabaa inaan idin gaarsiiyo marka hore halkan waxaan rabaa xawakiin hooyadeen inaanay jooginna waa laga yaabaa laakiin gabdhaheedii baa jooga gabdhihii waxay jooga walaasheena dhimatay Muniish qisiyara rabaa inaan idin sheego ay gabar Mombasa degan ay ila wadaagtay wacdi badan ma hayo gabdhihii inay joogaan walaalaheedna waa u maleynaynaa aaway gabdhihii la dhashay ma joogaan gabdhihii Muniish la dhashay ma joogaan qaraabadeeda waa joogaan Soomaha saaka gabar baa hurdada iga kicisay Mombasa ayay igala soo hadashay waxay tiri arrin la yaab leh ayaan arkay waxaan arkay anoonan jiifanin oo aanan gam'in laakiin gamaanyoonaya ayaa oo soo yara jeeda ayaa waxa ii timid hooyaday oo dhimatay hooyadeed baa dhimatay waxa la socotay bay tiri Muniish Muna Mustafa ayaa la socotay dharku qurxoon oo cadcad bay siteen dhulka ay joogeenna dhul cagaaran ayuu ahaa aad u dhageysta waxa hooyaan ku hooyo xageed iska hesheen waxay tiri waan nool lahay meel qurxoonna waanu ku noolnahay waan wada joognaa aniga gabadha waxay doonaysaa inay kula hadasho waa taan la yaabay waxay tiri haye gabadha marka waan dhaariyay waxay tiri Muniish ayaa si toosa ila hadashay waxay tiri ilaahay horta waa ina xariistay laakiin social media sawirradayda la wareejinayo fiidiyoyaalkayga la wareejinayo aad baan u dhibsanayaaye u sheego dadka intaad aragtaan fiidiyoyaalkayga ha tirtiraana kow waxay kaloo tiri adiga anay isoo eegtay waa gabadha ila sheekaysanaysaa waxay tiri adiga qudhaada fiidiyoyaalkayga waad fiirsataa habeenkiiye iga xafiirsanina iska tirtir gabadhana waxay tiri waa runteedoo waan fiirsadaa waxay kaloo ii raacisay waa naxsanahay way tiri waxay ii raacisay gabar bay magaceeda magacawday fanaanad ahaan jirtay oo ka baxday oo la yiraahdo qaaliladan magacaas ii sheegtay waxay tiri qaaliladan waan ogahay aniga dartay in ay uga baxday meediyaha markaan dhintay kuwa kalena inay ka baxeen waan la socdaa waxaad ku tiraahdaan bay tiri yaanay dib dambe ugu noqonin fanka waan cabsaday bay tiri anigii hurdadii aan ka soo kacay bay tiri waxaan raadiyay qof aan sheekada la wadaago walaalayaal fariintaas aniga qaan bay ugu ahayd inaan idiin soo gudbiyo laakiin waxaan rabaa waxa gabadhaasi aakhiro tagtay Allah u naxariistay ay ka cabanayso waa fiidiyoyaalkii ay duubtay iyadii way dhimatay saaxiibadiin bay ahayd Allah u naxariistay waxaan marka rabaa inaan la dardaarmo gabdhaha maanta jooga sida walaalkeen uu inoo sheegayay laayga ku raadinayay jirkooda inay banaanka soo dhigaan hadhow yaa ka bixin doona ilaahay bad ku dhaariye geeriduna waa xaq
waxa been abuur ah ee social media ka socdo waad garanaysaan ilaahay iyo rasuulkiisa way og yihiin social media wayna ka hadleen allah yiri wajtanibu qawla zuur ka fogaada gabdhayahow idinka iyaga ka fogaada qawlu zuurka waa maxay waa waxaan ku tirkuteenta waa waxaan barbagaadada waa waxaan fisqiga waa waxaan macsida waxaan ilaahay looga fogaanayo gabdhahan horaadkooda ruuxaya dambeedkooda ruuxaya jirkoodii abuurkoodii bedelaya ku raadinaya quud ay cunaan wajtanibu qawla zuur dadka wanaagsan ee ilaahay jecel yahay cibaadu rahmaan baa la yiraahdaa markii uu ka hadlayay rasuul ilaahay wuxuu yiri walladina la yashhaduna az-zur wa idha marru bil lagwi marru kirama kuwaana waqtigooda kullu min zuurkan beentan waqti lumiskan baashaalkan ana kullu min fisqi ma'si ilaahay kuwan haddii ay arkaanna aanan eegaynin waqti saareenin ee ka fogaanaya xabiibka wuxuu yiri sallallahu alayhi wa sallam aan ku gabagabeynaya wuxuu yiri raggii intuu la hadlayay dumarkii ala unabbiukum bi akbaril kabaa'ir ma idin sheega dambi ilaahay laga galo kuwa waaweyn هذا اللي يري وحوايو يري الإشراك بالله وعقوق الوالدين إله لو شريك له والدك عاسل ونغضب وجيفي وسفريستي صلى الله عليه وسلم مركز صوحو يري ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور وحو يري وررك بنته إلا أبو ريو wararka beenta ah lagu sheekaysanayo iyo marxaati beenaalayaasha kuwa sheegareynaya wallahi social media ka hadlaya eeg wuu jiifay wuu soo fariistay arrinka inuu weyneeyo wuxuu yiri kuwa YouTube leyda ah wallahi waa YouTube leyda warar degdeg ah ayaa la soo qorayaa kulligood saasay ku wada shaqaystaan war degdega waa waxaan waxba ka jirin waa ku tiri kuteen nin baa la caayaya ummad baa la caynaya nacay baa la abuuraya ummad baa la kala geynaya qabaayil baa la isku diraya war degdeg ah ayaa la leeyahay hal saac ayuu fadhinaya oo u dhididaya dhaar buu maraya wuxuu leeyahay war laay gareeya oo sheegareeya oo subscribe gareeya gabaleelka furta gaarsiiya ayuu leeyahay eeg ilaahay baa ku dhaarshiye rasuulkan wuxuu leeyahay sallallahu alayhi wa sallam calaamada saacada waxa kamid ah shahaadatu zuur in been ummadda oo dhan ay ku kulanto oo qaarna ay sheegaan qaarna ay sheegareeyaan bal u fiirsada dadka beenta sheegaya ee ilaahay ka furtay fisqiga fidinaya yaa fiirsada live-ka kuma namba fiirsata laakiin dadka khayrka kaali arag shahaadatu zuur iyo waxa kamid ah shahaadadii xaq ahayd oo la qariyo oo aan la sheegin bal dambiga urursanaysan xisaabiya bal dambiga I know some of you are obsessed with views likes بل حسوسنا يعني كفكرة انت قف اكو داودي اما كو اركي ادو بلا حجابة اما ادو ميك اب مرصدي اما ادو دانسية انت الدنبي ادمارين تا شقيستي انت نينا كو اركتي ايشا كو راحيسانيسا إيش إلا العين تزني وكل النبي يقول صلى الله عليه وسلم العين تزني والأذن تزني واليد تزني والرجل يزني زنا العين النظر وزنا الأذن السمع وزنا اليد البطش وزنا الرجل الخطأ والفرج يصدق ذلك أو يكذب في رسالة haddaad maanta suuqa xijaab ku martay aad malcaamadii iyo masaajidkii aad ku soo martay xijaab hadhowna aad kamaro hor fadhiisatay maxaad soo kordhisatay aynu ka hadalno imika adraarka social media dhibaatooyinka kow waa waqti lumis
ووقت اللمس إلا من أمر بمعروف قف خير فرمو يعني social media أن تاجنا هاي تيك توك أن إيجيو كان داونا يو is a waste of time ووقت اللمس أديكونا ودي برد اللي يرضى إذن كنا وحيابها إن لقوا ريسانية أفرتم حاكم دا وفي شبابه فيما أبلاه لأن يرى نمدي سقف كان محو جيست محو جاري هلكو جاري محو وقبت إسلامك محو دين إلهي وقبت إلهي وها I had 1 million followers. Were they following because of the recitation of Sheikh Mahmoud of Sheikh Hudayfi? Were they following you because of that? Were they following you because you had a clip of Sheikh Kenyawi? Or they follow you because you played Drake? Ama qofkan baad haysiisa soo gelisay dhalinyaranimadadi maxaad geysay wa fi shababihi fima ablah markay la timaado Aisha ama Nafisa bint al-Hasan ama ay la timaado Zainab bint al-Abbas markay la yimaadaan yawm al-qiyamah kutub min al-hasanat ya ilm أدنى التي مادة تيك توك بل يوم القيامة تيك توك بدل إيمان سا أيوة وحي لا إيمان يعني علمي يا عمل يا إنجازات يا علماء وحبرين ابن تيمية كانوا صارين إمام مالك وحكبرتين تطبيق أدنى تيك توك بدل إيمان سا